filimkii Shaydaanul Insi wal Jinni qaybtiisii 6 ku soo dhawaada. Qaybtani waxay noo maraysay wiilkan dhalinyarada oo gaariga watay ee gurigan isagoo iibsaday. Wiilku waa mid eegaya guriga dhismihiisa iyo qaybo uu ka kooban yahay. Waxaana la jooga nin injineerka ahaa guriga. Waxaana la tusayaa wiilka qaybaha kala duwan ee gurigu leeyahay. Wiilku hadda waa mid aad ugu faraxsan guriga oo dhistay. Haddana waa mid baxaya gaarigiisana hore u sii kaxaysanaya. Waxaa u imaanaya mid ka mid ah kuwii saaxiriinta ahaa, weliba kuwa ugu weynaa ka mid ah. Wiilkana horey ayay isu aqoon jireen, laakiin wiilku ma oga ninkan inuu saaxir yahay. Laakiin waa ninka wiilka noloshiisa oo dhan baabi'i doona. Wuxuu sheegaa ninkan saaxirka inuu ku faraxsan yahay guriga wiilkan uu dhistay ee aadka u quruxda badan. Wuxuu sii doonaa ninkan lacag hadiyad ah, taas oo uu guriga ugu duceysanayo. Laakiin waa lacagtii noloshiisa dhan ugu baabi'i lahaa. Wiilka lacag buu soo qaban, asaguna wuxuu iska dhigaa nin diidaya oon ba qaadan lacagta oo lahaya war adiga niyo qarash ku galay guri dhisay aniga waxba haysiinin. Nin diidaya iska dhigaya marka dambena wuu qaadanaya. Laakiin lacagtaas waa lacagta wiilka noloshiisa dhan burburi lahayd. Hadda wiilku waa mid isaga tagaya. saaxirka waa macasalaamaya wiilka macasalaamo ayuu leeyahay. Hase yeeshee bal eeg ninkan suusanka u taagaya afkaas uu qalloocinayo cadowtinimada uu hayo intii la eg tahay. Hadda wuxuu ninkii saaxirka ku soo laabanaa golihii shayaadiinta. Halkan ayaanu lacagti keenaya si ninkan loogu sameeyo ciribgooyintii uu xumeed noloshiisa dhanna loo burburiyo. Hadda meeshaan waxaa jooga qoladii shayaadiinta ah oo midalba madaxiisa u ka shidan yahay dab yar oo dheri ku jira. Dhammaantood waa kuwa toosaya. Markaana waxaa imaanaya midkii lacagta la soo siiyo saaxirka ahaa oo loogu talagalay inuu ninka noloshiisa burburiyo. Hadda asaga ayaa istaagaya. Hadda waa mid u sheegaya habartii weynee shayaadiinta ahayd inuu ninka ka soo qaaday wixii noloshiisa lagu burburi lahaa. Lacagtaasa waxaa lagu ridayaa meeshaan dheriga oo aadka u weyn ayaa lagu gubayaa. Sidaasna ninka noloshiisa ayaa lagu aasayaa. Ninkana noloshiisii horumar kaleed halkaa ayay ku dambaynaysaa, ku burburaysaa dhammaanteed. lacagtii hadda waxaa lagu ridaa halkaa, sidaas ayaana lagu gubay. Ninka noloshiisana sidaas ayaa iyadana lagu gubay. Habarta shaydaanta waa mid aad ugu faraxsan sheekadan, welibana ka sheekaynaysa sida wax walba u dhacayaan. Midka weyne saaxirka ahna madaxa ayuu u ruuxayaa.
aad bay u faraxsan yihiin maadaama ay nolosha ninka soo gabagabeeyeen. Halkan waxaa jifa gabadhii Prince ahayd. Waa gabadhii ay saaxiriintu wax walba gabadha lugoynteeda ay u sameeyeen. Halkan waxaa ku xashiinaya laba ka mid ah saaxiriinta, waxayna meeshan ku cunayaan hilib iyo raashin kaloo u malaynaya inuu yahay raashinka qof kale. raashinka ay cunayaan waa bariis iyo hilib. hilibka ayay isku baryayaan, adigu cun iyo adigu cun, afka ii geli. Waana laba saaxir oo aad u khatar badan. gabadha haddaad si fiican u fiirsato qaybta ka sokaysa waxbaa warwareegaya aan aad loo arki karin, laakiin haddaad si fiican u fiirsato waxaad arkaysaa wax dhul oo kale ah oo wareegaya. waana qolada saaxiriinta oo gabadhan hurdada ku qaadaya. gabadhii iyadoo keliya ayaa la toosiyey, sidaana gabadha iyadoo jiifta ayaa waxaa la kaxaysanayaa ruuxdeeda si loo geeyo qolada shayaadiinta. halkaana waxaa ka kaxaynaya mid ka mid ah qolada jinka shayaadiinta ee shayaadiinul insiga ah. aynagu uma jeedno waxaa kaxaynaya gabadha. hadda gabadhii waxaa la keenayay golihii shayaadiinta, waxaana wata mid ka mid ah qolooyinka shayaadiinta oo loo xil saaray inay gabadhan ka shaqayso nolosheeda dhan siday u burburleed. habarta shaydaanteed waa mid loo keenayo, taasoo iyaduna habartu ay gabadhan wax ku akhrinayso. gabadhan mar kale waxaa la fariisanayaa meel ka mid ah qaybtan ay fadhiyaan golaha shayaadiinta. meel ka mid ah ayaa la fariisanayaa, halkaasna waxbaa lagula akhrinayaa, waxna waa lagu siinayaa. hase yeeshee gabadhiyo sax ma aha, laakiin waa gabadhii qayb ka mid ah ruuxdeedii oo dheelmad lagu soo kaxeeyey. duuqda waxaa u imaanaya mid kale oo ayadana ka mid ah qolyaha shayaadiinta ah, laakiin waa mid doonaysa gabadha inaan wax dhiba loo geysan lana iska sii daahiyo. midaan gabadha haddaad hore fiidiyooyii hore aad u soo daawatay waa midii hore ee gabadhan ay saaxiibada ahaayeen ee guriga ugu imaan jirtay, taa ay gabadhu ka baro jirtay gurigeeda. gabadhan waa mid ku afuufaysa wax qolooyin kale ee shayaadiinta, waana kuwa wada dhacayaan, iyaduna way qufacaysaa maadaama ay wax awood badan ay tuurtay. habarta shaydaantana waa mid aad ugu xanaaqaysa ugana argagaxaysa gabadhan waxa ay samaysay, laakiin gabadhan wax walba waxay uga dan lahayd inay gabadhaas ka badbaadiso qolyahan shayaadiinta ah. habarta shaydaanta waa mid aad u naxsan, u argagaxday, lana yaaban waxay gabadhan kale ay ku samaysay. waxayna u sheegaysaa inay aad u qaldan tahay, ayna nafteedana ka taxadirin, laakiin laga awood badan yahay ayay habartu u sheegaysaa. middan waa mid isku dayaysa inay habarta u qaboojiso oo u sheegayso inay mar kale u sujuudayso. halkan waxaa fadhiyay oday saaxir ah, waxaana u imaanaya gabar jaamacad dhigata. gabadhan waxay ugu imaanaysaa in xoogaa yar ay walaacsan tahay, wiil ay jeceshahay, ayna doonayso inay guursato, laakiin ay doonayso inayna jaamacadda sii wadato. laakiin waxay weydiinaysaa ma guurka ayaa dani ah mise jaamacadda ayaa dani ah.
saas ayay ka codsanaysaa. Isaguna waa mid u sheegayaba in jaamacadda wax iska dhaafto, jaamacadna aysan macno lahayn, sidaas laajigeedna ay guursato. Laakiin waxay leedahay ii fiiriyo maxay soo baxaya, guurku ma ii yahay mid khayra, balaaye ayay gacanteeda kusii dooranaysaa. Odaygu waa weydiinaya gabadha inay hayso sawir ninka ay doonayso ay jeceshahay. Markaan waxay tusaysaa wiilka ay jeceshahay sawirkiisa, farta ayayna ka saaraysaa. Wuxuu u sheegayaa wiilka inuu yahay wiil aad khatar u ah, wiil aad u qurux badan ayuu u sheegayaa inuu yahay, ayna tahay inay guursato. Laakiin odaygu hadalka uu sheegaa dhabka ma ahan, siduu gabadha u lugoy lahay ayuu ka shaqaynayaa. Fiidiyowgan intaas uu yahay, la soco qaybta 7 mar tani.